dibadbaxayaasha waxa ay u badan yihiin caruur iyo haween waxaana ay aad uga xun yihiin dil loo geystay wiil da'diisa lagu sheegay 7 ilaa 8 sano oo la sheegay in deegaanka Xawaale ay ku dileen rag uu ka mid ahaa wiilka geeriyooday aabihiis. dadka deegaanka ayaa u sheegay warbaahinta in dilka uu yimid kadib markii wiilka yar uu cunay sab ama alabari ay qabeen ehelada wiilka geeriyooday taasi oo ay u intami weyday aabbaha dhalay wiilkaasi iyo xertiisa oo ka tirsan koox diimeedka loo yaqaano takfiirta ee ka mid ah dariiqooyinka ka jira dalka Soomaaliya. Cali Maxamed Muuse Cali Atuunyo oo ah gudoomiyaha deegaanka Xawaale ayaana u sheegay warbaahinta sida ay dhacdada ku timid. tuuladan Xawaale ama beeshan Xawaale waxa ka dhacay qolan la yiraahdo takfiir oo masaajid gaar ah leh goonin u dugtaan kaligooda ayaa waxa sameeyay wiil yar oo saqiir ah oo ama 12 aan ku qiyaasayo 7 sano sida dadka ay sheegay 7 sano lagu qiyaasayo da'diisa in ay maartaa ay dileen meerjiyeen wayna ku rideen gacmahana gadaal u xireen siil ku xireen sababta ay u dileenna haddii la baarbaaray waxaa la sheegay ama xogteeda la helay wiilka aabihiisa waa takfiirta ka tirsan yahay marka waxay u dileen wuxuu soo cunay meel tacsiya ah ee abootadiisa dhimatay wiilka abootadiisa dhimatay tacsidii uu tegay saad ugu cuni kartaa meesha tacsiida oo tatcunta sid ugu cuni kartaa aaweeda ee cunugaas loo dilay aabihiisa iyo qoladii shaqada takfiirka ahaa inay dileen nabiyada ku soo rideen saas ayaa ka dhacday markii la warsaday waxaa soo baxday in uu aabihiisa iyo qolada la mid ah takfiirka inay go'aankooda saas ahaa nabiyada ku rideen markii la islaama qaaday wixii lees warsaday warkii dhan haddii rag iyo dumar isku dhexeeyada banaan baxweyna ka dhacay dooni mayna takfiir saqiir dila dooni mayno shacabkii oo dhan xaalad ilaa 4 sac ku gaaray beriga ilaa 2 sac ku gaaray haddii abnigii oo baarbaaray oo orod galay 6 qafood takfiirta ah oo aabihiisana uu ku jiro ayaa la soo qabtay iyagoo baxsad ah waxaana laga soo qabtay tuulada Raqaylow howdkeeda ayaa laga soo qabtay iyagoo si dhuumaalaysanaya haddana waxay ku jiraan gacanta ciidamada beelad oo jooga Xawaale ay gacantooda ku jiraan waxaana loo gudbin doonaa maamulada naga sareeya masaajidkii ay ku tukanayeen takfiirka ayaa lama yeeraha iyo dhista laga qaaday lagana dhigay dhul caadi ah masaajidkaas oo bulshada dhan ay diideen beesho dhan ay diideen ummadda dhan caamada iyo xiraasada ay diideen taas aageed masaajidkii oo dhulka la dhigay oo iyaga ay ku tukanayeen gaarkan u ahaa ciidamada ammaanka ee deegaanka Xawaale ayaa ku guuleystay in xabsiga la dhigo raggii dilka geystay waxaana hadda degan xaaladda deegaanka.